librariga u gali weydeen oo meesha idin taagay waxa meesha ugu taagan meel librariga u gali weynaa ciriir buu nagu yahay maadaama wiilashu naga badan yihiin librariguna aad buu nagu yahay xilliga galabkiina fursad u helnay inaan wax ku akhrisano leena maxaa yeelay wiilashu iskuulka dhigta aad bay u badan yihiin gabdhuhuna aad bay u badan yihiin markaas wiilasha ayaa markaas naga soo hormara haddii aan xataa 10 nimaan space aan wax ku akhrisano ma helo markaas tan waxay nagu kalftaa xataa inaan habeenkiina imaan weyno aan guryaheena iska joogno xaqsanaan kaligiina ma hanay dhammaan ardayda hadda meesha kaga muuqataa waa ardaydii walaalaha ee iskuulka dhiganayay kulligoodna u wada diyaar ah inay wax bartaan una halgamayay waana u saamixi laadahay inay hadda xataa buugta laftirkooda ay helaan bal fadhiga laftirkooda iska daayaan kamida dugsiga sare oo ah meesha nasashada halkaas oo u fadhiyo inaan xogaa exercise shirkada shaqaysto maadaama librariga uu yar ciriiri meesha nasashada taasina waxay nagu xukuntay inaan meeshan wax ku akhrisano sababta oo ah librariga oo yar awgiis ayaa meeshan waxay dantu nagu xukuntay inaan wax ku akhrisano oo aan macnaha akhriska ay halkaan ay nagu xukuntay maadaama librariga yar ciriiri yahay waxaan codsan lahayn in librari naloo dhiso waxaan kaloo sii codsan lahayn in gabdhaha librari gaar u ah baahida ugu weyn oo dugsiga Cumar Samatar oo qabo waxa weeyaan waa librariga weeyaan librariga markii maaragtay maxaa ahaa oo la fiirsho wuxuu qaadi karaa arday ilaa 30 arday ayuu markiiba qaadi karaa laakiin dugsiga waxaa dhigto 1500 oo arday ay dhigato oo 360 ay yihiin gabdho marka waxa fiirinaysa marka fiirisay tirada ardada librariga matqanaa intuu qaadi karo mugiis intuu qaadi karo marka isku fiirisay waxa arkaysa inuu librariga aad iyo aad uu yahay xariiri uu yahay taas ayaa marka keentay in arday fara badan banaanka wax ku akhristaan gabdhaha siiba inay matqala banaanka wax ku akhristaan ama inay ku akhristaan wax meelaha lagu nasto maaragtay in wax ku akhristaan marka baahida ugu weyn oo maanta dugsiga qabo waxa weeyaan waa librari weeyaan aad iyo aad ayaan mahad celin lahayn ciddii nagu taageerto in librari cusub iskuulka loo dhiso ama midka hadda noo joogo in la baro ilaahay baa horta mahad leh meelo badan kama jirto waxbarashada iyo saxwada ka jirta Cumar Samatar ilaahay noo suuro geliyay baan uga mahadnaqaynaa horta kow waxaan kaloo u mahad celinaynaa dadkii qaybta badan ka qaatay inay iskuulkaani ku soo noqdo sidoo aan jiray oo sumcadiisa soo ceshado arday macallimiin iyo waalidiinba meel kastoo ay naga jiraanba waa u mahad celinaynaa haatan baahidu taagan waxa weeye kow ardada inay hesho meel ay reference ka qaataan oo wax ka bartaan markay macallinka ka dhaqaaqaan in la ballaariyo librariga yaa ballaarinaya marka weeye su'aashu waxa ballaarinaya wixii u damqanaya waxbarashada waayo waxbarashadu waa sadaqa jaariya sideeda marka qof kasto qaangaar ah oo wax kala garanaya waxaan leenahay ka qayb qaado waxbarashada ummadda dalka